Ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee walaalaha Insifo oo aan halkan idinkaga sii ambaqaadno. Habeenka qabowgiisa, cagabaruuryadan waxay qaadanayaan cashar kale oo lagama maarmaan u ah ugaarsiga. In aad doorato ugaarta oo aad diiradda saarto waa shay kale oo aasaasi ah. Waa muhiim in la xadido ugaarta la rabo in la ugaarsado iyo midda aan la rabin. Eriyadu ugaartu waa qayb ka mid ah ugaarsiga. Gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan, qaar ugaarta ayay eryayaan, qaarna ugaarta ayay u dhakanayaan, laakiin cagabaruuryadan weli uma kala caddaanin doorkooda waxa uu yahay. Isku day geesinimo oo uu qoyskiisa kaga fogeynaya cadawga ayaa Chief waxa uu ku dhaqaaqay roonda ah xuduudda dhanka bari ee deegaankooda, taasoo webiga u jirta 16 kiiloomitir. Waxa uu xoogga saaray oo keliya xuduudda bariga, laakiin dhanka webiga cadow ayaa ka soo geli kara. Waagii markii uu bariyay, webiga waxaa ka soo tallaabay libaaxyo aan la garanayn. Waa 2 aar oo barbaar ah, xooggooda iyo caafimaadkoodana uu u dhammaystiran yahay. Qoyskooda waxa ay ka soo tageen waqti dambe. Waxa ay qaadeen tallaabadii ugu horeysay, waxa ayna raadinayaan lamaane. Laakiin ma kala cadda sida ay u wajihi doonaan walaalaha Insifo, kuwaasoo ayaga ka xajmi weyn kana awood badan. Laakiin walaalaha Insifo waa ay kala tagsan yihiin. Labadan aar ee barbaarka ah oona hanqaltaagga badan waxa ay raadinayaan codadka libaaxyo oo ka soo yeera halkan. Laakiin wax shanqar ah ma lahan. Goobtan waxa ay u muuqataa goob lagu riyoodo, waayo ma jiraan wax tilmaamaya inay halkan ku sugan yihiin kuwa ayaga kula tartama goobtan ku fiican ugaarsiga. Kalsoonida ay naftooda ku qabaan waa ay ziyaaday. Dhawaqan ma muujinayo inay goobta yeesheen, laakiin waa inay goobta fiican tahay. Kaadidooda waxay bixinaysaa ur soo jiidan karta libaaxyada kale ee goosha ah, kuwaasoo lamaana raadiska ah ee ku sugan halkan. Imaatinkooda waxa uu ku soo beegmay xilli wanaagsan oo ay qalaleen togagii biyaha, kuwaasoo lo'kisiyada ku qasbaya inay soo aadaan dhanka webiga. Xilligan oo kale ee sanadka, lo'kisiyadu waxa loo arkaa inay yihiin ugaarta ugu fiican markii loo eego libaaxyada. Lo'kisiyadu inay halkan yimaadaan waxa ay ka dhigan tahay libaaxyadana inay meel walba isaga yimaadaan. Dhanka bari ee xuduudda deegaanka ayuu Chief iska sii wataa roondadiisa. Asagoo dhaawaca haddana neeftuuraya ayuu ka soo baxay dagaal. Maalmo ayaa laga joogaa, welina Chief waa uu maqan yahay.
codadka libaaxyada barbaarka ah ayaa la maqlayaa, laakiin Nooch maadaama walaalkiisa garabka u ahaa uu maqan yahay, waa uu iska aamusan yahay. Gooshan barbaarka ah waxa ay u dhaqmaysaa si ka duwan reerka. Waa fursad weyn markii ayada loo eego, waayo hadda waxa ay diyaar u tahay inay hesho lamaane. Waxaa soo jiidanaya codadka libaaxyada aarka ah. Horay ogama aysan soo fogaan reerka, laakiin rabitaankeeda lamaane ayaa aad u weyn. ayadoo soo raacayso codka iyo urka kaadida, kuma adkaanayso inay wadadeeda hesho. Waa ay labalabaynaysaa, waayo libaaxyadan aarka ah horay uma aysan arkin. Sida muuqataba, kani waa kulankii koowaad markii ayada loo eego. Waa kuwa ay arrintan ku cusub tahay. Laakiin gooshan ma aha inay halkan sii joogto. Arrintan kama dhigno inay qoys sameeyaan, laakiin waa bilow uun.